الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدحية طبناد يا كتاب كني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله وعن كسو جرني قيبتي معاسد عقوبات كدشاه وحاكم من عقوبة كدلتا دنبغ إيا معصيدو وحي كبحسا قفك دائرة إحسانك إحسانكو وصدح دي حديثكي رسولك صلى الله عليه وسلم جبريل مركو إيمانيي إسلام نمذا وورمي إيمان كان وورمي إحسان كان وورمي وعبادة يا الله كبقضة إنو قفكو إلهي سبحانه وتعالى سرب أو غبقو وحين كمن عنايا دنبيغو إنو ثواب كدتك محسنين تروحا سهلو إحسان كاسي هدو قفك قلبي سلباشره بمعنى هدو قلبك قفك جارو wuxuu u diidayaa macsiyo in ruuxu sameeyo qofkii Allah caabuda sida isagoo arkayo u caabuda wuxuu noqonayaa qofkaas waxaa ka qaalib noqon xusuusta rabbi iyo jacaylkiisa iyo cabsidiisa iyo inuu rajaynayo wax wanaagsan oo ka rajaynayo baa qalbigiisa ku badan wuxuu noqonayaa sidii isagoo u jeeda kaannaka taraah fa in lam takun taraah fa innahu yaraak waa xadiidkii wey sida adigoo Allah subxaanahu wa tacaala u jeeda taasina waxay kala dhexgelaysaa qofka iyo macsi iyo dunuubba inuu doono iska badaa inuu ku dhace xitaa qalbigiisa way ka leexinaysaa haddaba hadduu Allah subxaanahu wa tacaala qofka khayr la doono wuxuu qofka isaga ku sugayaa daa'irada iyo xerada dadka mu'miniinta ah ayuu ku jirayaa haddii uu ka baxo daa'iradaas iimaanka wuu ka baxayaa oo qofku haddii uu dembigii sameeyo iimaanka laga qaadi sidoo rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam xadiidkii imaam bukhari muslim laa yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min wala yashrabu al-khamra xiina yashrabuha wa huwa mu'min wala yasriqu xiina yasriqu wa huwa mu'min yani xadiidkii rasuulku wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam qofka zinaysanaya marka uu zinaysanayo ma zinaysto isagoo oo mu'min ah khamrada ma cabo iyo daroogada isagoo oo mu'min ah wax ma xado isagoo oo mu'min ah bimacnaa waa maxay marka iimaanka waa laga qaadaya taa culimadu tafaasiir badan ayay geliyeen iimaanka meesha la geynayo qoliyaha qaar yiraahdaan ka dhulla sida daruur buu ahaanayaa oo kor taagan oo kadibna waa loo soo celinayaa haddii uu qofkii dee toobad keeno markuu dembiga ka baxo المهم قفكاسي وحو كدح بحيا دائرة إيه حرضة مؤمنين وحا كتغيا إنا يقول يد إلهي سبحانه وتعالى والدفاعي أو الله سبحانه وتعالى والدفاعي كمجري إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعني الضد كان قفكاسي سجي يمسه جلاي هذا بالذنب عقوبة وقفك كسمايه وإن قلبي يسوع سلاس نقضه وانو قولadaas iyada iimaankii uusan soo gelin sidaas oo kale dunuubtu waxay ku sameeysaa qaabta kamida inay daciifiso qofka inuu qalbigiisu u socdo xagga alle iyo aakhiro inuu socdo dunuubta iyo macaasidu waxay joojisaa qalbiga oo ay ka celinaysaa iyo ka goynaysaa inuu xagga rabbi u talaabsado haddaba ma daynayso isagoo talaabsanaya bal way celinaysaa qalbigu wuxuu u socdaa xagga Allah subhanahu wa ta'ala biquwwati awood ilaahay siyabu u dhaqaaqa haddii uu marka jiradu dunuubta ku jirado waxa daciifaya awooda haddii awoodaasina meesha dhamaanba ay ka baxdo wuxuu ka go'ayaa qofkaasi Allah xiriirkiisa buu ka go'ayaa dembigu markuu qofku galo imma inuu qalbiga dilo ama inuu jirado labada midun buu noqonayaa haddii ama inuu daciifiyo quwadiisa iyo awoodiisa hadday daciiftana wuxuu noqonayaa qofkaasi sideedii shay ee rasuulku ilaahay uu ka magan gali jiray inuu ruuxaasi isu dhiibo oo uu noqdo mid ku sifaysan waana xadiidkii imaam bukhari muslim soo saareen ee uu rasuulku lahaa allahumma inni a'uudu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dal'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal ilaahay waxaan ka magan galayaa hammi iyo ghammi yani waxa la yiraahdo hazan iyo murug iyo walwal baan ka magan galayaa ajzi
iyo kasal baan kaa magan gelayaa, inuu qofku waxba qabsan kari waayo, uu diintii ilaahay iyo waxbarashadiisii iyo cibaadadiisii iyo daacadiisiiba uu maaragtay cajzi uu ka fuulo. waxaan kaa magan gelayaa fulaynimo iyo bakhaylnimaan kaa magan gelayaa, waxaan kaa magan gelayaa dayn inay iga qaalib noqotaan kaa magan gelayaa, inay rag iga adkaadaana waan kaa magan gelayaa. marka xadiidka isaga ah ujeedada waxaa la yidhahdaa dunuubtu min aqwa alasbaab bay ka mid tahay, asbaabta ugu waaweyn oo 8 arrimood keenta ayay ku jirtaa. sida ay u keentaba ashaqa ayaan daro iyo in waxun uu kugu dhaco su'ul qadaa, iyo in cadowgaagu uu kugu farxo, iyo inay nicamtu kaa zuusho, iyo inay ilaahay subxaanahu watacaala sakhadkiisa iyo caradiisu kaa kugu dhacdo. caafana allah, ilaahay subxaanahu watacaala haynaga badbaadiyo, rabbina subxaanahu watacaala ridihiisa hayna siiyo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.